إلهي ما هذله سبحانه وتعالى إلهي بكريم ما هذله إلهي ما قوم هذنا إلهي رحمة إنه شبه حريته إلهي حلا إنه سيادة ما لنا هاي إلهي ضدك أنا إسأل يسيب الله سبحانه وتعالى إلهي قرن كنا إنه إلهي ما لنا سبحانه وتعالى هذا إلهي مهدي إنه ما أنت أرين إن بدنا صوغ الجلطي أي ما أنت إلهي إنه يرجليه إنه نسكون معنا هوي فوت ريجستريشن كارك ما أنت لقابين لبحين يا وكارك هذه لها يراهم مستقبلك دل كان عندي قعنت لو جين لها يوم الضروش الشغال لها اللي قد دورنا بقى وحن شاء الله هاي إنسي ونعكسنا الله قاطو سلو الشيء ما يركونه أنا دمن قبل كستبانو إنتي سيرتي تتكلم أنا دمن بانو يكتكون باقية لقنا إلى عليه إن كاركا وقعنت وقال عيد كله ضد كان على السيو فرصة ونعكسن يميل في عنك وقاطان وحوي ما أنت كأدك تهين المشرحين توا ما أنت كارك ما أنت قاطين كفوتين السنة نجيب وين بقول عدة كنا وكحي صدعان عضينتي مركز أركان إنه وحي استبدلي أنا إيمان هذين تهاي برلمان هذين تهاي دولة هوسة هذين نقطة حكومة بقى لكن حلا إن يجيبكم ما فينا مر هذين نقول استفوت كسرنا يودور شيء سرناش وإلى يدون exercise كريسان حقوق دينا كنا فرصتان عدة سنين استنسيا هذا تاعي يسكو ومامين أنا لقول دورنا وحيرة لقول دورنا لقول دورتوريا إلهي قرين سبحانه وتعالى دل كان وحب بهاي هرمر اعتراف وبهاي هاي يا كينيا يا كاكو دورتان ما تكون تردارنيها طلعنا إلهي من صارنا سبحانه وتعالى وعن هذه هذا بليان يا مير كينا ونسي مير هذا كلام هذا عيلين تاسو حكم مقطعين وح هذا إنه وح هذا أنا علماء كم مقطع إن شاء الله تعالى ما أنت نك ما كان صار نقضاء وهم بليان يا نك هذه أدمى هم بليان يا كوميشن كا ما أنت الدورش شذا عن قبلنا اللبور والبان وكقبا بدو حوي وحق السكيورتي السكيورتي أنا واحد دائما كائن هوس ودعضي وحنو شريت اللفر إني قلنا إيو ده waxaan ku ugu baaqay inay xagga security-ga ay naga caawiyaan laana waxyaalaha aynu iibin jirnay laba wax buu ahaa waa xagga nabadgelyada iyo xagga doorashooyinkii wadiga arkoon iyo jabka dhacay wata ka muuqata ee gabadhina hadda sheegisay dibadhayaashii badnaa keenay tii hore ee lagu niyad jabay dawladda keentay oo 22 bilood ku darsatay oo testified ahayd tii dambana ana Muuse u marxaad furaya anaga mucaaradka keenno dadkan ka naxnayo abaarta aheedo taxaqqa ahrehe maantana tan waxaan ugu balan qaadnay inay waqtigeedii dhacdo in insha Allah taala ugu baaqno qodobka inagu soo dhaw waxa weeye nabadgelyada maanta way sii xumaanaysaa wala aragto ma doraato waxa waa fariisaabeen saddexaad wadada isku xidha burco iyo laascaanood bas baa lagu rasaasay waa xaalad aynu bariyahaaba aynu maqal baa weey taas waxa keenaysa waxa weeye maciishadii oo kacday inflation oo kacay awaari oo dhacay dadka dawaa markaa waa inay
ay boobaan waa iska caadi ta kale nabadgelyada waxaan waxa weeye siyaasadii oo la qabiileeyay oo reerii yiraahdaan waa inankeena soo saarna mustaqbaliyada la samaystay baasha hadda siyaasadda qabaaladeena waa wixii berigii 60 dawlad markay dumaradu jirtay cirka yaale reer hebel baale dhulka yaale reer baale wixii la soo celiyaa way taas waxaan rabdoonaynaa in saddex xusbi isku nimaadno on code of conduct samaysano on ku tartanno waariyaa wax qabanaya maxaa weeye platformka what do you stand for maxaad u haysaa dhallinyarada sabo ee marka 6 gobolba ka qaylisay ee musuqa ka taagan ee qabyaalada nacday ee shaqo la'aanta dhacday maxaa loo qabanayaa weeye doorsi waa talabadaas marka nabadgelyada waxay ku xidhan tahay inayna nagu ciidamadeena ila khayr qaba askariga qaata $100 ee inflation dhacay ee mushaarkiisa aanu joogin jirin muxuu ku ilaalin karaya ka furanka jooga muxuu ilaalin karaya waa in inflation la dagaalamo yaa la dagaalamaya dawladii meeday waa tan waxa ku mashquulsan tahay si ay soo saar lahayd موسى وشرحدين ودورتين ووهبيسين لأنك ما حق يريستك أن لا تنتربيسون لا سمانة كهذا بالله إن شاء الله تعالى أو مدة وشقاية waxaan jecelahay in adduunka idka sheekay adduunka niyad jab baa ku dhacay waxaan aad iyo aad u amaanayaa European-ka inantan fiican baa way tagtay laakiin sharitaan si fiican u la haasaaway alxamdulillah maxamed xiriirkeenu uu xumaaday intii ay dawladdan kulmiyatiimi oo dhanba xitaa markuu xirti joogay xiriirka adduunku ma fiicneen imakana way sii yaaceen ingiriisiisa way naga tagay wuxuu ahaa kii u weynaa ee caawin jiray weligiina waa la yaqaan ingiriis oo maalinta dantiisa way naga tagaayo berigii reserve area waa kii naga tagay markaa xamar buu u jalay oo oil ka qaadanaya baddu doonayay badda Soomaaliyeed dawlad aan jiro beenbeena inuu ku xaday magaceeda way naga tagay wadanka Denmark iyo EU-da ayaa nagu soo hadhay EU-dana way joojisay lacagtii ay ku diray deform Somali Development Fund post way joojisay ilaa dawlad cusub timaado waxaan filayaa haddii kulmiyo ku soo noqday inay joojisay maanaya haddii hadda ka joojisay ka soo socdo kulmiyo ka joojinaysaa weelata waa inaynu soo celinaa kalsoonidii adduunka maxaa kalsooni qaaday waxayna sii dilay madaxweynaha laba jeer baa loo kordhiyo waa loo qaadhiray waxaan guurji loogu sheegay iyo waxaan leeyahay wakiilada loogu sheegay ee iska fadhiya ee isku korkordhinaya sanka laga qabsaday gaar weli qaarkood doonaya madaxweynaha isku sharaxaan wakiiladeena marka waxay ku xidhantahay Soomaaliland jiritaankeeda iyo aqoonsigeeda iyo waxtarkeeda inuu isbedel cusub yimaado oo cusub oo dhig cusub leh oo hore loo tijaabin taas ay daga gacanta ku haya maanta dagu soo celisaan wakiiladii oo madaxweyne ka dhigtaan da kulmiye ku soo celisaan generaalka saartaan nothing has changed baadila insha Allah waxa la isku cabsiyaayo dad badan gacanta u tuwa Soomaaliya wax la yiraahdo Soomaaliya wax la ma jirto Soomaaliya waa loo tashaday waa la baabinayaa shan wadan baa laga dhigay shanta wadan midba ciidamo loo sameeyaa iyaga la isku jeedinayaa halka wax ka soo jeedo khayr ma jirto inaga u gurmana moojaan marka inaga danteenu waxay ku jirtaa inaan teena hagaajisano
إن أنتينا هجاجسنا أو واحد نجحهم aynu inagu wada jira samaysano danteenu kuma jirto meel uriso oo dhimatay oo yamiyay gacan way joogto inuu gacan taago inaga gacan uga bahay maanta wal aragta shirka ka dhacaya ee London kooyto bisha waxa laga saxeexanayaa in Soomaaliya shan gobol tahay isdee tahay gobol kasba ciidamadiisa leeyahay ciidamada dhaxal wala baabinaya mid kastaba gacanta rim lagu xukumaya iyagana isku mashquuliya dan Soomaali halka lagu mahayo iyaguna uma arka dantooda waxa ay maroodigu tagarta saaran arka ka kala saaran buu arka inaga inagu soo foogay laakiin waxa u baahanay inaynu iyagana wax u tarno hadba wax u tarno marka inagu wax qabsano oo inu qabyaalada ka tagno oo inu eexda ka tagno oo inu dadka sinaan ugu qaybino inagoon gobol ahayn inagoon beel ahayn inagoo wada citizen oo siman shacbiga u siman faqiir iyo taajir u siman oo beelajireen waxayna qaybsan loo baahay marka waxaan ku talinayaa dhalinyarta mustaqbalkiina halka ah ka eegina halkan ka eega waxaan ku soo dhameynayaa hawl badan baa inoo taala 6 bilood ay noo hadhay waxa loo baahan yahay inaan sameeyno gamcays wada qabsano dawladdu shaqadeeda ku hagaagto anaguna aan ka dayno guskujiga si uu sheegay professorka oo dabaqaylista waxa keenaya basaxumada keenaysa hadaan basaxuma jirin ma qaylin professor laakiin markay maradu ka dhacdo war marada saaran leen insha Allah taala doorta inaynu gamcays qabsano oo inagu wada jira aan sameeyno climate fiican jawi wanaagsan oo doorasho inagu dhacdo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ki dalka khayr u leh inuu soo saaro oo Ilaahay aamino ee loo baahan yahay oo international community waxaan ka codsanayaa inay arrintan nala wadaan waxa jirta kelmad hore u baxdo leeyri wax la sameeyo mustambeed wax la sameeyo ma jirto mustambeed xasaabtan laban khusbi wala mustambeed khayr ma leh laakiin waxaan sameeynaa wixii aynu sameeyno nag u sameeyno waynu ka wada tashanna waxa weeye wax back up ah oo iyaga wax u tara oo shaqadu faragelin laakiin iyaga gacan siiyaan sameeynaa insha Allah taala dawa ma hasantiin boorme wad ma hasantahay laba musharax ku xigeen baa leedihiin iyo musharax baa leedihiin madaxweyne laba madaxweyne baa leeyahay kala doorta insha Allah taala ma madaxweynaha ma ku xigeenada kala doorta insha Allah taala ya xasan salaam alaykum